Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalaheyna qiimiga badan oo channelkeena Sahan Tube. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad channelkan soo booqatay, fadlan subscribe inoo saar. Haddii aad horey inoola joogtayna fadlan fiidiyogan like inoo saar. Mahadsanid. Waayadii dambe waxaa bulshada ku soo batay dadka sida xad dhaafka ah u fikira ee dhibaatada maskaxeed kala kulmay. Waxyaabaha ugu badan ee fikirka badan dhaliya waxaa ka mid ah marxaladaha dhaqaale xumada iyo xiriirada jacaylka ee fashilmay. Laakiin ogow, si kasta oo aad u fikirtid ma bedeli kartid wax dhacay ama xaalad laga soo gudbay. Waxaan halkan kuugu soo gudbinayaa 4 xeeladood oo aan ugu talagalay inay adeegsadaan dadka uu fikirka badan dhibaateeyay. Haddii aad samayso 4 qaab ee aan halkan kugula wadaagi doono, waxa aad gebi ahaanba joojin doontaa fikirka badan ee noloshaada dib u dhigay. Haddaba, si aad uga hortagto dhibaatooyinka uu leeyahay fikirka badani, waa in aad raacdaa 4 tallaabo ee aan halkan kugula wadaagi doono. Diiradda saar waxyaabaha fiican ee kugu hareeraysan. Fikirka badan waxa ugu weyn ee sababa waa farxad la'aanta joogtada ah. Si aad u yareysid, ku mashquul waxyaabaha wanaagsan ee agagaarkaaga ka dhacaya ama dadka u roon naftaada ee kula jooga. Tusaale ahaan, haddii waxa aad ka cabanayso ay tahay lacag la'aan, ka fikir caafimaadka uu Alle kugu manaystay. Xasuuso inay jiraan dad haysta lacag inta ay doonaan, laakiin aysan u iibin karin caafimaad. Haddii waxa aad ka fikirayso uu yahay jacayl, ka fikir inta qof ee ku jecel halkii aad hal qof ka fikiri lahayd oo aan adiga wax xiiso ah kuu haynin. Erayo fiican ku soo celceli maskaxdaada. Maskaxda bini'aadamka waxaa loo hagi karaa si sahlan. Haddii ay jirto arrin ku dhibaysa oo aad mar walba ka fikirayso, adeegso xeeladan. Maskaxdaada ku soo celceli erayo ay ka helayso xasilooni. Tusaale ahaan, haddii waxa ku dhibaya uu ahaa xanaaq uu qof kaa xanaajiyay, ku soo celceli erayo ku saabsan waxyaabaha farxadda laga helo, sida xeebta iyo jacaylka. Ama soo xasuuso waxyaabo farxad badan lahaa oo horey kuu soo maray, ama dhegeyso kalaamka Alle. Xoogga saar marxaladaha maanta. Waxyaabaha ugu badan ee ay dadku ka fikiraan waxaa ka mid ah arrimaha mustaqbalka. Haddaba, iska jooji inaad maskaxdaada ku mashquuliso waxa dhici doona xilli aanad ogeyn inaad nolol ku gaari doonto iyo in kale. Xoogga saar waxa aad maanta faraha ku hayso. Ha ku daalin inaad ka fikirto waxa aad samayn doonto berrito, usbuuca dambe ama xilli ka sii fog. Jawiga soo bedelo. Goobaha lagu arko waxyaabaha dabiiciga ah sida dhirta iyo xayawaanada waa meelaha ay maskaxdu ku xasisho. Xilliga uu fikirku kaa bato, qorshahaaga ku darso inaad isku mashquuliso meelaha lagu nasto ee indhaha u roon. Waxaa midaas ka sii fiican inaad hesho waqti firaaqo ah oo aad ku soo bedelato jawiga oo aad ku aado dalxiis meelo fogfog ah. Maskaxdaada ayaa ka muhiimsan wax kasta oo kale, sababtoo ah inta aad tahay qof caafimaad qaba ayaa tahay qof qiimo leh.